wafdigan uu hogaaminayay xildhibaan Aweys Axmed Sardeeyo ay weheliyaan wasiir hore Cabdulaahi Qoobdeero iyo xildhibaan hore Maxamuud Dheere iyo qurba joogta deegaanka ayaa waxa ay boqosho ku tageen deegaanka Tawakal ee gobolka Nugaal. Soo dhaweynta wafdiga kadib ayaa u kurgalay xaaladda deegaanka iyo baahiyaha bulshada waxayna sameeyeen barnaamijka dhirbeerista deegaanka. Gudoomiyaha deegaanka Jaamac Maxamed Yuusuf oo wafdiga soo dhaweeyay ayaa ka warbixiyay baahiyaha deegaanka ka jira. waxaanu leenahay Allah noo barakeeyo dawladda Puntland xildhibaanada wasiirada nabadoonnada culimada diinka siyaasiyiinta simada oo Tawakal oo ku taala gobolka Nugaal ee degmada Garowe. dhankooda waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada deegaanka iyo Shukri Isburaash oo ka mid ah haweenka qaybta ka ah horumarinta deegaankan. haddana waa la isugu yimid annaguna waa soo booqanay yacni maaragtay annaguna maanta waxaan u nimi booqasho iyo inaan dhirayn iyo yacni maaragtay aanu dhirayno baanu u nimi dadka deegaanka meel waxbarasho inay helaan caafimaad helaan. Tawakal waa magaalo loogu talagalay dadka reer guuraaga oo degan aagaan oo dhan inay ka helaan waxbarasho caafimaad inta ay ka helaan loogu talagalay weeye sababta loogu talagalay meelaha deegaanka oo xooluhu ay daaqayaan ama ay miyiga ay degan yihiin haddaan iskuulo la geeynin ama aan la geeynin meel goob waxbarasho aan la geeynin waxay sabab u noqon inay magaalooyinka soo xaroodaan xoolihiina ay meesha ka baxaan. waa meesha ugu fiican ay xoolihiina u badan yihiin ilmihiina la rabo maadaama dad ay ilmi ay meesha joogaan ilmihii iyo haweenkii iyo dadkiina ayagana ay wax ka bartaan cilmigii uu gaar haday diin tahay iyo haday maadi tahayba ina u qareemi doono oo maxaan ku dhahaa meel kasta u gali doono insha Allahna waxa waaye gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. wasiir hore Cabdulaahi Qoobdeero iyo xildhibaan hore Maxamuud Dheere ayaa iyaguna goobta ka hadlay in laga hirgeliyo caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo biyihii iyo ilaha qadar iyo korontadii iyo caafimaadka xoolaha iyo dadka in laga hirgeliyo bay hadda u jahaysan tahay insha Allah waana ku raad jirnaa waana heli doonaa inaan intaba ka hirgelino marka insha Allah waxaan rajaynaynaa geedahan aan maanta keenayna Ilaahay inuu noo koriyo oo Ilaahay noo barbaariyo. warkuna wuxuu iska ahaa maanta booqasho iyo soo dhaweyn la soo dhaweeyay inaan ka mahad celino wixii ama baahi ahaa ama faahfaahin ahaana waxaa ka hadlay mas'uuliyiintii iga horeysay insha Allah taala waxa dhiman MCHK iyo adigu adeegii hadii alla ku roon yahay maaragtay asaasiga haba dhiman insha Allah isagana hadde isku tashi baa la rabaa dibad iyo daakhilba ilaahay idankiis ilaahayna waxaan ka rajaynayaa ilaahay inuu u fududeeyo dadka ku hawlan. ugu dambeyntina xildhibaan Aweys Axmed Sardeeyo oo ka mid ah golaha wakiilada dawladda Puntland ayaa sheegay inuu ku dadaali doono sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha deegaanka ka jira. runtii waxaa sharaf noo ah dhamaantayo inaanu maanta soo booqano magaalada Tawakal ee ka tirsan magaalada Garowe gobolka Nugaal. waxaan runtii uga mahad celinaynaa mas'uuliyiintii deegaanka iyo waxgaradkii soo dhaweyntii wanaagsaneed runtii ay noo sameeyeen aad baan runtii uga mahad celinaynaa. waxaan kaloo markaa uga mahad celinayaa guud ahaan uga mahad celinaynaa martiqaadkii wanaagsanaa runtii ay noo sameeyeen waxaan leeyahay aad iyo aad baan runtii u mahadsantihiin. waxaa kaloo noo weheliyay inaan magaalada dhireen ku samayno geeda baanu keennay aan ugu talagalnay magaalada inaanu ku dhirayno. waxaa muhiim ah marka sideedaba bulshadu ayadu hadda isku takashato ayaduna waxba istari kartaa dadka iyo dalka waxba tari kartaa runtii waxbayna ku saacidin karaan. wax yar oo aqabatid oo wanaagsan waxay anfacaysaa deegaanka aad joogtid inta kula nool iyo inta ka maqan inta Soomaaliyeed ilaa hoos ka soo bilow ilaa kor u anfacaysaa runtii micno bay sameynaysaa maanta markii wax la qabto bari wax kale la qabto saad wax kale la qabto horumar baa runtii imaanaya inaad marka waxay ku imaanaysaa adinkuna hore u socotaan wixii ay haysatana in la ilaashado ayaa muhiima. su'aalaha geedahan maanta inay keenay in la ilaaliyo la xanaaneeyo laga shaqeeyo guud ahaan deegaanka la wada ilaaliyo oo runtii si hufan looga wada shaqeeyo daaqaysa la ilaaliyo. insha Allah annaguna waxaan ku dadaali doonaa Ilaahay idinkiis in baahiyihii markaas asaasiga ahaa ay magaaladu u baahnayd inaanu magaranaysaa dawladdii
iyo shacabkii iyo cid kastoo kaalin geysanaysa aan runtii inaan uga qareenno arrinkaas ma garanaysaa baanu annagoo isku wada duuban uqaali siyaasiyiin iyo waxgarad intaba iyo soo aqoon-yahan isla wada socno guud ahaan ayaanu diyaar u nahay habka adduunka aad u diyaar garowdaan oo dadka u soo dhaweysaan oo shaqadiina aad u qabsanaysaan bayna wax walba ku xirnaanayaan jaamac cabdiraxmaan Puntland TV Garowe.